جمعية الإحسان قيرية iyadu ka howlgasha xaafada shacabka ee magaalada Boorama ayaa waxay deeqa kala duwan oo isugu jira lacag iyo raashinba gudoonsiisay danyarta ku dhaqan xaafad weynta shacabka ee galbeedka magaalada Boorama waxaana jimciyadani badanaaba ka shaqeysaa howlaha mutadawacnimada ah ee dadka danyarta wax lagu gaarsiinayo bil walba ayay sidani oo kale jimciyadani raashin iyo fiiga waxbarashada dadka danyarta ay bixiyaan ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xaafada shacabka iyo maamulka jimciyada Al-Ihsaan Qeyriya kuwaas oo ka warbixiyay deeqdani lacagta iyo raashinka isugu jiray gudoonsiyeen dadkan danyarta maanta waa maalintii ducada la aqbalayo waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qeybtooda ha wanaajiyo oo sida ay ugu gargaareen walaalahood Ilaahay ha ugu gargaaro maanta halkan waxay noo fadhiya 20 qoys ayaa halkan noo fadhiya maanta waliba waxay u siyaadiyeen oo u kacaan inay xoogaa yar xaqal ciida oo maalinta beritoole ee la wada faraxsan yahay ay maanta ay iyagu soo deeqeen waliba oo walaalahooda masaajidka ku tukada masaajidka bir waaliday dadweynaha ku tukada oo ay ka soo qaadeen saadarteed bay iyo maanta qabteen inay hadana aad la faraxdaan idinku marka anigu ka odayahan ama odayada xaafadda oo kamid ah ama masaajidka aad iyo aad baan ku ducaynayaa waxaan leeyahay Ilaahay ciribtooda ha barakeeyo oo khayr qaba iyo asaaq wanaagsan Allah siiyo sida wanaagsan ay walaalahood ay wax ugu qabteen Allah ugu gargaaro runtii waxay ahayd waxaan aan ilowsanayn odayada waaweyn xaafadda ku nool waxaan ilowsanayn baa hay'ado ahay in dad masaakiin inagu dhex nool yihiin oo inagu dhex kaajoonayaan waan ilowsanayn iyaga Ilaahay uu tusay oo xasuusiyay kuna guuleystay in masaakiinta xaafadda ku dhex noolay ay maaragtay walaalahooda intay wax ka soo qaadaan ay u gudbiyaan Ilaahay waan baryaa inuu Ilaahay u barakeeyo cilmigooga iyo caqligooga maalinta qiyaamana in miisaanka ugu daro waa maalintii Carafa waa maalintii ducada Ilaahay aqbalaya subhanahu wa ta'ala waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu naga yeelo waxaan ku howlan aniga oo ah aniga runtii hawl aad u dhib badan oo runteedii miisideedii qaybinteedii oo la qaybinay xaafadda lagu geenayo maxaan ku raadaan isla xaafadooda habeennimadii oo laga soo ururiyo kiilo yar xaafadda kiilo laga kiilo xaafadii xaafadda waxay bixiso laga qaadaya jimciyadu waxay ka shaqeysaa xaafadda shacabka guud ahaan waxay ka shaqeysaa dhammaan xaafadda shacabka ilaa badda waa jimciyada ballaaran aan kaga baxaya intaan ku soo dirayso waatan iyaduna mid kamida haweenka iyagu deeqaha lacagta soo gaarsiiyay dadkani danyarta oo iyaduna arrimahaas iyo arrimo kale ka waramaysa waxa weey nabadgelyo naxariis Allah ina siiyo waa wiinkeena yaryarkeena kuwa isku naxariista Allah inaga dhig Allah ina cafiyo awalkii iyo aakhirkana iyagana khaas ahaan Allah ka sii abaal mariyo awlaada waxa weey annagana Ilaahay hana karansiyo ina Ilaahay maagad xalaalana Ilaahay oo ballaaran Allah na soo galiyo ina annaguna kuwa kale oo annaga naga sii taalyarina ka rajaynayno ina gacanta ku sii fiiqan si kastaba ha ahaatee jimciyadani ayaa muddo 2 sannadood soo jirtay iyadoo ka shaqeynaysay howlaha mutadawacnimada ee dadka danyarta wax lagu gaarsiinayo xaafad weynta shacabka ee magaalada Boorama waa nuux keliya telefishinka madaxa bannaan ee Rayo TV Boorama.